halkani waa degmada Waaberi oo ka tirsan 17 degmo ee gobolka Banaadir. Dhul ahaanna waxaa la aasaasay ama loo cabiray sanadii 1957 waxaana bixiyay duqi magaalada xilligaasi oo la dhihi jiray Anzalotti, dhalasho ahaanna ka soo jeeday waddanka Talyaaniga. waxaa ku yaala in ka badan 25 masjid iyo suuq weyn oo degmadu caan ku tahay, sidoo kalena waxay leedahay hal saldhig iyo 2 MCH. sanadkii 1972 ayaa asalka magaca degmada iyo calankeedaba waxaa yagleelay Maxamed Cabdi Yuusuf oo aabihii uu ka mid ahaa halgamayaashii Soomaaliyeed ee ku dhintay dagaalkii Dhagaxtuur ee ka bilowday degmada. Waaberi waxay caan ku tahay oo ku yaala goobo taariikhi ah oo muddo soo jiray, taariikh ahaanna qofkii arkay maskaxdiisa ku soo dhacayso berisamaadkii iyo xilligii lagu jiray halgankii lagu baadigoobayay xorriyadda. 1945 bishii 5 Oktoobar meeshaan halganka Soomaaliya ayaa ka bilowday. taaladan waa taalo aad u bilowday halgankii Soomaaliya. Dhagaxtuur wuxuu ku baxay meel oo waxay ahayd mustacmarka ay u badnaayeen, ay soo mari jireen ya Soomaalidii ayaa maartino dad la xumeeyay. markaasaa Dhagaxtuur Soomaalida dadkii qoryo watay dhagax ku tuuray. meeshaan naga soo horjeedo waa masaajidkii Isbaaysiga, waxay ahaan jirtay qabuuraha Talyaaniga. ya wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan ayaa wafdi ahaan waxa u tagay Sacuudi Arabiya. markuu tagay ayaa dowladda Sacuudiga oo markaas boqor Faysal boqorka ah ayaa waxa ka ballan qaaday in masaajid oo weyn inay Muqdisho ka dhisayaan. dadka ku dhaqan degmada Waaberi nolol ahaan waxay ku tiirsan yihiin ganacsiga iyo xoogsiga maalinlaha ah, waana dad ay ka dhaxayso darisnimo iyo walaalnimo soo jireen ah, taas ay ku saleeyeen halhayskooda. Waaberi wanaagsan oo walaalihii waa iswataan. waxa ay ku dheehan tahay haddaad fiirisid kelmaddaas Waaberi wanaagsan oo walaalihii waa iswataan. haddaa micnaheeda sii dhadhamiso waxaa kuu soo baxayso walaalaha iswato. waxaa waaye Waaberi waa meel dad aad u kala duwan ama se nolol ahaan u kala duwan ama se meelaha ay ka kala yimaadeen ay kala duwan tahay. waa degmo qadiimi ah. degmada waxay ka kooban tahay 4 waaxood. 4taas waaxood oo la kala dhaho Oktoobar. hanti wadaag waa meesha xarunta degmada ay ku taalo. Oktoobar waa xarunta degmada dariska la ah. Horseed iyo hanti wadaag iyo Horseed iyo Kooda Maajana waa wadada dheer ee Maka al-Mukarrama. Kooda Maaja waa meeshan aad arkaysiin oo hadda maanta aan fadhino oo badda qaybteeda Indian Ocean badweynta India iyo airport uu ku yaalo. intaan ku sugnayn degmada Waaberi waxa ay noo suurta gashay inaan booqano guriga ay ku shaqayn jireen ururkii dhalinyarada ee gobonimo dirarka ah ee SYL, kaasoo burbur uu ka muuqdo, halka dadka qaar markii ay maqlaan SYL ay maskaxdooda ku soo dhacayso taalada SYL oo la dhisay xilligii dowladdii dhexe, balse gurigan uu yahay mid ay ku shaqayn jireen xilligii la aasaasay ee 1943. ismaheeda waxaa la bilaabay 80. waxaa loogu magac daray xaruntii dhalinyaradii SYL oo u halgamay xorriyadda koonfurta Soomaaliya. gobollada koonfureed ee Soomaaliya 13 dhalinyaro ee u halgantay ayaa loogu magac daray magacii SYL. eriyadaaba SYL ahayd oo xaruntii asalka ahayd waxay ku taallaa hotel Siyaad dhinaciisay ku taallaa. xaruntaa xarun taariikhi ah waaye. taariikhda koonfurta Soomaaliya gobonnimadeeda iyo gobnimadeeda xarunteeda waa xasuustii waa taariikhda taaladan. Waaberi waxay daris la tahay soodimana ay wadaagaan degmooyinka ugu badan ee gobolka Banaadir, taasoo muujinaysa baaxadda ay leedahay iyo halka ay ku taalo oo ah meel dhaxtaal u ah degmooyinka gobolka Banaadir. degmadan waa degmada gobolka Banaadir ugu xuduudda dheer. waa degmo xuduud la leh 6 degmo oo kale. waxay xuduud la leedahay degmada Xamar Jajab oo dhinacan dekedaha ay xuduud kala leedahay. waxay xuduud la leedahay degmada Xamar Weyne. waxay xuduud la leedahay dhinacan Wadajir, Hodan, Howlwadaag iyo Wardhiigley. 6 degmo ayay xuduud la leedahay. intaan guda jirnay soo bandhigista taariikhda degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, waxaan booqasho ku tagay halkii uu deganaa madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. halkaan u jeedaan wuxuu ku noolaa waqti aad iyo aad u fara badan. waxa uu noolaa isagoo isbartoore ah ayuu halkan ku noolaan jiray. waxa uu ahaa dadkii ugu xukunka dheeraa ee waddanka Soomaaliya soo maray. degmadan waxaa sidoo kale ku yaala guryo ay deganaan jireen dad badan oo isugu jiray heer madaxweyne, ra'iisul wasaarayaal, siyaasiyiin iyo weliba dad kale oo bulshada Soomaaliyeed saameyn ku dhex leh.
halka aan joogno waa gurigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhashay ku soo barbaaray ilaa waxbarashadiisii oo deganaa gurigan wuxuu ka mid yahay guryo badan iyo goobo badan oo taariikhda degmada ka mid ah sida aan soo aragnay taaladii dhagaxtuur SYL iskuuladii Raaga Ugaas Maxamuud Mire iyo buundooyinka iyo guryihii kale oo soo booqanay madaxweynihii dawladda kacaanka Jaale Maxamed Siyaad Barre. Inta badan madaxdii dalkan soo booqan jirtay xilligii dawladdii dhexe waxay u badnaayeen kuwa la yimaado mashruucyo horumarneed iyadoo ay dhici jirtay in dawladdii xilliga dalka ka talinaysay ay ugu magac darto wadooyin iyo goobo kale oo taariikhi ah sida ka muuqata wadooyin badan oo degmada Waaberi ku yaala. Wadadan waxaa la via Tanzania xilliyadii hore wadada mashruuc kastoo la furayo madaxda imaanato ayaa lagu sharfi jiray Julius Nyerere madaxweynihii dalka Tanzania furay wadadan Tanzania loo bixiyay wadadan boondada hoos marto waa wadadii ceelgaab tagaysay waxaana la wadadan via Moscow la waxa kale oo jirto wadada degmada horumarto wadadaasna waxa la via Uganda waxaana furay Alxaaji Idi Amin Dada madaxweynihii dalka Uganda waxaa ku sii xigo wada kale oo Liberia via Liberia loo wadadaasna waxaa furay madaxweynihii dalka Liberia William Tolbert munaasabadaha hadda walba xilliyada sanad guurada kacaanka markii la gaaro ayaa mashaariicda badan la furi jiray madaxda ka soo qayb gasho ayaa lagu sharfi jiray inay wadooyinka ay furaan. Marka laga eego sooyaalka waxbarasho ee degmadan waxaa ku yaala 17 iskuul oo taariikhi ah oo isugu jira sare dhexe iyo waliba kuwii farsamada gacanta walow ay jirto goobo gacanta dawladda ka baxay xilliyadii dagaaladii sokeeye dalka ay ka dhaceen kuwa oo qaarkood si dan gaar ah loogu shaqeysto qaarka kalena waxaa laga bedelay magacyadii loo aqoon jiray xilliyadii barsamaadka. Iskuuladii magacyadaas aan ku sheegay hadda qaarka furan in magacyadiiba laga wada bedelay waxyaabaha taariikhda dhuminaya ayay ka mid tahay oo magacyo kale loo bixiyay laakiin iskuulka kaliya ee maanta magacii la dhihi jiray ee Raago Ugaas ku taagan waxa waaye iskuulkan hadda aan joogno oo Raago Ugaas. Sidoo kale waxa ayna degmadan lagu xasuustaa fanka iyo kubadda cagta oo ay caanka ku yihiin reer Waaberi waxaana ka soo baxay degmadan ciyaartooydii iyo fanaaniintii ugu caansanaa Soomaaliya kuwaas oo ku abtirsada degmada Waaberi. waa badan yihiin macallimiinta soo marta ama fanaaniinta degmada Waaberi ka soo baxday haddii ay noqon lahayd Axmed Inshaar Cabdi Olol Allah u naxariisto Maxamuud Goox Qawar Qarboosh laftirkiisa Allah u naxariisto Xasan Aasan Matar laftirkiisa Cabdiqaadir Macalin Juba Maxamed Saleebaan fanaaniinta macraatira laguma soo koobi karo inta ku jiro haddana waxaa goobjoog ku ah Bintu Cumar Gacal. Taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee degmada ma aha mid intaan lagu soo koobi karo balse ugu dambeyntii waxaan booqanaa halkay ku kala qaybsamaan degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab ee dhanka badda iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde oo ay ka socdeen shaqooyinka caadiga ah ee maalinlaha ah halkaas oo ku soo gabagabeynay xog aruurintii aan wadnay Maxamed Ciise Koona.